waxaan goobjoog ka ahaa muxuu nin dhintay nin la dilay oo habeennimadii maalintii jimcihii la dilay maalinta jimcaha masaajidkan ku tukanay meydkii baa la keenay waxyaabaha dhaqanka Soomaalida aanan ku jirin aan ku arkan laascaanood ku soo aragnay ama gobolka Sool waxa ka mid ah suldaan ama caaqil ama garaad ama sheekh ka hadlaya dadka la dilay ma jiro qofka waa la dilayaa dabeedna waa la duugayaa waa la aasaya waa la kafaya waa la aasaya dadku ma hadlayaan kelmadda lafteeda anigu waxaan weydiiyay dhalinyarada aqoonyahanka reer Sool ee jaamacada ka baxay waan weydiiyay waxaan ku yiri war sababtan qofka marka la dilo dadkii deegaanka uu ka soo jeeday ama odayaashu u hadlayaan maxay tahay sidaad ogtihiin muddo bil iyo dhowr maalmood ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guddi shan wasiir oo loo magacaabay oo gobolka Sool loo diray baan ku jiray muddo dhaweyto oo waxaan joognay muddo bil iyo xogaa bisha iyo xogaagan joognay gobolka Sool anagoo u tagnay dilalkan badan soo noqonay bal naburkan ama dhibaatada jirta ee dadka reer Sool ama degmada Laascaanood ku soo noqonaysa oo runtii dilal badan ay ka dhaceen marka la isku geeyo dadku waxay ku qiyaaseen hadda 85 qof ba 85 ruux baa lagu dilay oo u badan ragii haldoorka ahaa ama labeenta ahaa ee u dhashay gobolka Sool magaalada Laascaanood ragaasi ama taliyaal ha noqoto ama ha noqoto ciidamada kala duwan ama ha noqdaan maxkamadaha ama ha noqdaan hantiilayaashii ama ha noqdaan culamaa u diinka muxuu ahaay dalka ha noqdaan dad aad u fara badan baa horta meesha lagu laayay dabeedna markii aan tagnay waagi dhawaan joognay bisha waxaan soo war dhibaatadan dhacaysa halkay ka dhacaysa muddadii aan shanta wasiir ahayn in bisha aan joognay qiimeyn baan ku sameynay anagoo la shirnay bulshada rayidka kala duwan haweenka la shirnay muxuu ahaay waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka kooban tahay odayaasha dhaqanka anagoo qararagnay culamaa diinka la kulanay dhalinyarta la kulanay meelaha shaahiyada teknolojiyada aad u la hadalnay dadkaas waxay ka cabanayeen markaa dadkaas waxay ka cabanayeen oo ay aad uga caawdeen oo ay dhalinyartu noo sheegeen oo ay haweenku noo sheegeen oo dadka deegaanka noo sheegeen dadka aan deegaanka ku ahayn ee aan deegaan ahayn ka soo jeedin reer Laascaanood ama muxuu reer Sool aan ka soo jeedin deegani inay dhibaatada qayb ka yihiin oo dadkan wax dhibaateynaya ee wax dilaya inay dadka ku soo gabanayaan anagu markaa waan ka nimidnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadda ayuu haddana u diray saddex wasiir wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaadiidka iyo wasiirka warfaafinta saddex wasiir baa iyo wasiirka xanaanada xoolaha saddex wasiir baa muxuu ahaay afar wasiir baa imika la jooga afar wasiir baa jooga wasiiradaas markay imika tageen waa markii labaad ee golaha wasiirada halka loo diro wasiiradaas markay imika tageen xalkii dhibaatadii maalinta hore ay dadku sheegeen un bay mar labaad sheegeen xalkii markaa wuxuu noqday bal in lagu eego naburkan si loo daweeyo in dadka deegaanka aan ahayn Laascaanood degan in si tartiiba oo wanaagsan inta loo raro oo loo saaro baabuurta loo saaro dabeedna deegaanadii ay ka soo guriyoogi in lagu celiyo iyagoo dhibaato loo geysan in guriyoogi lagu celiyo maxaan daba rabaa inaan ka jawaab waxyaabo aan doonayaan ka jawaab kamid ah waxaan xalay aad u dhageystay media waxa jira dad aanan ogeyn xaaladda Laascaanood inta dad ku dhimatay aan ogeyn dhibaatadan Laascaanood haysata ama gobolka Sool haysata dadka haysata dad aan ogeyn baa jira oo xal ku hadaaqay dad baa la haybsoocaya waxaan sheegayaa dadka Soomaaliyeed saale hadii dad la haybsoocayo 200 oo guri ka badan bay boorma dadka Soomaaliyeed degan Hargeysa tijaarta iyo dadka maalqabeenka way joogan guriye degan berbero way degan eergaabo way degan burco way degan wax haybsooc la yiraahdo ma jiro dad u dhashay gobolka Awdal ama Soomaaliland u dhashay waxay joogan xamar oo ay guri degan yihiin cid haybsoocaysa ma jirto laakiin bal horta waa in la fahmaa magaaladan gobolkan Sool magaaladan Laascaanood dhibaatooyin aan Soomaaliya geeyiga Soomaalida ama Soomaaliland baan haysan baas gaar u haysta sidaarteed ay xukuumaddu go'aan qaadatay walbal dadkan aan deegaanka ahayn muxuu ahaay bal in guriyo ay ka yimaadeen lagu celiyo si bal hadda dhiigan dhacayo iyo dhibaatada dhacaysa xal loogu helo horta waa taaway taloore lagu haybsooc la yiraahdo iyo cid loo jeedo iyo dad la xumaynayo iyo Soomaali muxuu ahaay taargad laga dhiganayo iyo waxa soo dhan ma jiraan laakiin waa in la ogaadaa 85 qof baa dhintay sababta ku dhintaan lama hayo waxaan goobjoog ka ahaa anu markaan waftigii madaxweynuhu diray bish joogan ku jirnay waxaan goobjoog ka ahaa muxuu nin dhintay nin la dilay oo habeennimadii maalintii jimcihii la dilay maalinta jimcaha masaajidkan ku tukanay meydkii baa la keenay
waxyaabaha dhaqanka Soomaalida aanan ku jirin aan ku arkan laascaanood ku soo aragnay ama gobolka Soolba waxa kamid ah suldaan ama caaqil ama garaad ama sheekh ka hadlaya dadkan la dilay ma jiro qofka waa la dilayaa dabeedna waa la duugayaa waa la aasayaa waa la kafayaa waa la aasayaa dadku ma hadlayaan kelmadda lafteeda anigu waxaan weydiiyay dhalinyarada aqoonyahanka ee reer Soomaaliya jaamacada ka baxay waan weydiiyay waxaan ku yiri war sababtan qofka marka la dilo hadadkii deegaanka uu ka soo jeeday ama odayaashu u hadlayaan maxay tahay marka horta dhibaato jirta waa in Soomaalidu ogaataa ama dadka reer Soomaaliland waa inay ogaadaan dhibaatada laascaanood taala ma dhibaato lagu xalin karayo si kale dawladdu mooday waana amar xukuumadda oo dhan ay qabto in dadka deegaanka aan ahayn ee balwada guryooga ka yimid in si tartiiba gaariyaal loo saaro guryooga lagu celiyo haddii sidaa ku degi weydo markaa magaaladu oo dhagartu ay ku joogsan waayaan ama dilka qorshaysan mar walba ka dhacaya sidaa ku joogsan waayo markaas haddana warkeega kale la gali doonaa laakiin wadda balimiga sidan xukuumadda ay garatay waa si la rabo in dhiiggii daadanaya ee 85 qof iyo dadka ka badan ee haldoorka ee reer laascaanood ay ku dhinteen waa bal inay xal u noqoto bay horta xukuumaddu saan u sameysay markaa bar labaadna waan ku celinayaa dad la haybsoocayaana ma jiro dad dhibaato loo geysanayaana ma jiro waxa weeyaan dilka dhacaya qaab ya la go'aamiyay walbal hal lagu eego sidanoo reer Sool oo sooca oo gobolkoogii wada degan bal magaaladii hal lagu eego inuu dul joogsaday in kale wasiir xukuumadda waad ku jirtay gudigaana waad ku jirtay saa tilmaamtay dadka si u dhaliisan arintan tarxiilka hadda xukuumaddu sameynayso waxay sheegayaan in dadkan la tuhunun lagu saarayo waanay jirin cid cad oo lagu hayay dilalka ka dambeeyaan sidoo kale waxay dadku ku dhaliiseen xukuumadda in si degdeg ah loo saaray oo caruurtoodii iskuuladii laga soo kaxaynayo oo dukaanadii ganacsiga lahayn laga kaxeeyay arimahaas oo dhan soo lama oran karo xukuumaddu way ku degdegtay run su'aalada meesha taala way ahayd in waqti la bixiyo oo waqti la siiyo laakiin dadka reer laascaanood maanta media ka hadlaya dad shalay hadlayay odayaasha ee cabanaya Faysal shalay markaan shanta wasiir ku tagnay aan joognay dadka ay farta ku fiiqeen ay ka cawdeen ay yiraahdeen dadkan nalaynaya waxay guryaha ku soo yimaadaan laga abaabulo ee laga tilmaamo waa guryaha dadka nala degan bay yiraahdeen dukaanada waliba ku haysta iyaga laftooda weeyaan dadku wax sameynaya bay nagu yiraahdeen annaga saas ay nagu yiraahdeen marka tii ay nagu yiraahdeen ayay go'aanka xukuumadda qaadatay walba dadka kale meesha laga saaray bal inuu dhiigani joogsadeen kale dadka waqtiga la siinayo marka runtii waa qabaanu fikirka in waqti la siiyo laakiin xaaladan imika laascaanood ku jirto xaalad adag weey marka si darteed ay xukuumaddu waxay samaysay in baabuurtii dadka loo keeno in qof guri wal oo degay alaab wuxuu haysto iyo hanti wuxuu haysto in loo raro hana ku midna suuragal ma qof dukaan haystay in dukaankiisa inta laga kaxeeyo soo hantiisu taala la qaada taas aqli ma galayso bil aadan baynu dad islaamaynu nahay marka qof kastaba wuxuu haystay iyo reerkiisa iyo ubadkiisa waa loo raray xitaa dadka lama karabina guriga caruurta u degan iyo alaabtooda baabuur baa la saaray intaasoo baabuur baa la saaray baabuurta shidaaladooda iyo kharashkooda dawladda bixinaysa